akhris wadareedka iyo bandhigga buugga gardaadiya uu qoray qoraa daa'iraha keena soo qaybgaleen dhalinyaro ka kala socday degmooyinka gobolka banaadir ayaa lagu qabtay beertanimada naadiga akhristayaasha xamar ayaa soo qabanqaabiyey madashan lagu soo bandhigay buugga gardaadiye waxaana goobjoog ka ahaa madashan gudoomiyaha naadiga akhristayaasha xamar injineer cabdiraxmaan ibraahim faaraxa gudoomiye ku-xigeenka naadiga dictoresa bahji cabdilaahi salaad xoghayaha naadiga doctor cabdiqani carfaaye qoraa cabdikariin gruun iyo weliba qoraaga buugga lagu soo bandhigay madashan ee xasan cabdulle cali sow shirmaal mas-uuliyiinta iyo qoraaga buugga ayaa ka hadlay madashan oo ay isugu yimaadeen dhalinyarada ka soo qayb gashay akhris wadareedkan iyo bandhigga buugga. horta buugga gardaadiye waxaa qoray qoraageena weyn ilaahay sharfe xasan cabdulle cali sow shirmaal oo inooga yimid dalka Sweden. runtii waa maskax oo inoo soo miiday waa dadaal badan juhdi badan oo maalmo badan iyo habeeno badan uu soo jeeday ayaa maanta Muqdisho inala jooga. waa soo dhaweynaa runtii aadan waa ugu faraxsanahay inuu na soo gaarsiiyo book standardkii ugu dambeeyay buuggan waxaa la yiraahdaa gardaadiye waana magac ku habboon runtii iyo sheekooyinka ku jira markaad akhriso. buuggan wuxuu ka kooban yahay 143 book ayuu ka kooban yahay. waxaa ku jira 25 sheeko caruureed oo qayb weyn ka qaadanaya barbaarinta ilmaha. af Soomaaliga ku qoran buuggani waa mid fudud oo si degdega loo fahmi karo macnaha uu buuggu xambaarsan yahay. buuggan waxa lagu tala galay ilmuhu markuu dhasho ilaa 10 jir wixii ka hooseeya ayaa aad barbaarinta uu buuggan qayb weyn uga qaadanaya. waxa laga ilaaliyay kelmado cusub oo u baahan in fasiraad badan loo sii galo. marka luqadda buuggan ku qoran waa luqadda abwaanku runtii soo xulay. waa luqadu dhinac walba ka seego waa luqad fudud oo aabbaha ama hooyadu ilmaha u akhrin karto ilmahana ay dhexdooda akhrisan karaan. waa luqad runtii aan aad u jeclaysay aadna u fudud. buuggan waxaa la daawacay 2020kii waxaan lagu daawacay qurbaha dalka Sweden. haddaan ka hadalno muuqa guud ee buugga waa mid noocee ah. buuggan waa buug sawiro leh oo gudaha ay ku jiraan sawiro badan oo ku habboon sawir walba ku habboon mowduuca ama sheekada uu ka hadlayo. isla markaana buugga sheekooyinka ku jira waa sheekooyin color leh oo si fiican ay caruurtu u arki karaan. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. marka hore ilaahayba mahadle. mar labaadka waxaan aad ugu mahad celinayaa qoraaga buugga. marka saddexaad waxaan salaamayaa dhalinyarta kala duwan ee kala fadhigan ka soo qayb gashay oo rag iyo dumarba leh isugu jirta qorayaasha mufakiriinta iyo dhalinyarta soo socotaba. aad baan idin salaamayaa dhammaantiinba. waxaan idin leeyahay salaamu allaahi calaykum. anigoo ku hadlaya afka naadiga ahna naadiga madaxiisa ama gudoomiyaha kolley Soomaaliduna tiraahdo madax meel ka sarreyso la taabtaa ma jirto. laakiin maanta waxa iga sarreeya ama iga mudan buuggan hortayda yaalla oo anigana ay keenay idinkana idin keenay dhammaanteena ina wada keenay goobtan inaynu ku midowno oo aynu ka hadalno. maadaama uu naadigu ku magacaaban yahay ama naadiga akhristayaasha xamar kalfadhigan la hor fadhiyo haddana waxa mudan oo mudnaanta la siinaya buugga iyo bulshada kala duwan ee ka soo qayb gashay madasha lagu gorfaynayo lagu soo bandhigayo la iskula eegayo lagu falanqaynayo buuggan magacaweyn gardaadiye bambixiye afartan bixiye qofka sidoo yaqaano oo cunuga waqtiga yar yahay ee la gardaadinayo 40ka cisho dhamaysto ilaa iyo inta uu noqonayo qof isagu iskeena oo gacantiisa biyaha kaga dharga. aniga ka gudoomiye ahaan markii aan buuggan akhriyay walow anan maanta hortiina intaan la imaado aanan idin lahayn 1 iyo 2 iyo 3 qaybaha hore ee buugga oo ay aad iga soo jiiteen sheekada koobaad oo ka bilaabmaysa page-ka 8aad iyo sheekada ugu dambaysa oo anigu inta aan hadda ka qaatay 8 sheeko ugu horeeya iyo dhammaan buugga waxa uu iga anfacay oo aan aad ula dhacay. waxa ku qoran waa diin iyo dacwo bakayle iyo dameer libaax iyo shabeel laakiin way ka fac weyn tahay ama way ka ujeedo badan tahay ama way ka mirar badan tahay oo waxa loo baahan yahay in ay hooyadu cunugeeda qaabka ay u barbaarinayso ugu tixgeliso haddii aynu isla eegno sheekada koobaad oo kale.
بسم الله الرحمن الرحيم مقاعي وبهجة عبد الله الصلاة كانت ترسان بعد نادي أغرستاش حمر ما أنت نادي أغرستاش حمر هل كانوا وجوجا بيرتنا بدا إنه فلانقينو بوجا جردادي وقري إن حسن عبد الله على سو شرمال وقراءة بوجا كنادي أهان maanta farxad weyn ayay inoo tahay in aan maanta halkaan iskugu nimaano sidoo kale waxaan u mahad celinayaa saaxiibadii ka soo qayb galay madashan aadka u quruxda badan dhamaantiin waa mahadsantihiin mar kale anigoo ah Bahja kana tirsan naadiga akhristayaasha Xamar waxaan ahay gudoomiye ku xigeenka naadiga akhristayaasha Xamar farxad weyn ayay tahay maanta inaan halkaan joogo naadiga akhristayaasha Xamar wuxuu u taagan yahay garab istaaga bahda jiilka soo baxay qorayaasha Soomaaliyeed naadiga sidoo kale wuxuu u taagan yahay dhiirigelinta dhalinta daneynaysa inay qoraan ama ku guda jirta buugaagta ama rajaynaysa in ay qoraan buugaag naadiga hadii jarab wuxuu u taagan yahay dhiirigelinta dhalinyarada Soomaaliyeed farxad weyn ay tahay inaan ka mid ahaado sidoo kale galabta maanta waxaan u taaganahay in aynu falanqeeno buuga gardaadiye uu qoray xasan cabdulla cali soo shirmaal بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد dhammaan ka soo qayb galayaasha iyo maamulka iyo madaxda guud ahaan naadiga akhristayaasha Xamar waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka salaamu alaykum waraxmatullahi wabarakaatuh salaan dabadeed waxaan idinka mahad celinayaa madashan quruxda badan oo run ahaantii sida degan oo milgaha iyo maamuus kale aad uga soo qayb gasheen lagjaradii la soo jeedinay aad u dhageysateen oo cimaarta si fiican loogu falqeeyay waxaa kaloo mahad celinayaa run ahaantii yani culimadii falanqaysay oo si mugle oo miisaaman u dul istaagtay cimaarta dhiganaha gardaadiye run ahaantii hawsha ay wadaan naadiga akhristayaasha Xamar ayaa waxay tahay gardaadin yani gardaadinta qayb kamid ah waaye oo yani gardaadinta maskaxda waaye kana waa gardaadinta oo barbaarinta marka run ahaantii aad iyo aad idinka mahad celinayaa waa maamuusantihiin ee mahadsanidina idin leeyahay dhanka kale haddaan yani wax yar ka idhaahdo cimaarta akhriska iyo muhiimadda uu leeyahay horta qofkii wax qoray waxa ka horeeyay akhris badan ka horeeyay marka qofku markuu wax badan akhriyo ayuu wuxuu qori karaa yani ayuu wuxuu macnaha wax qori karaa waxa la yiraahdaa weelku markuu buuxsamo oo yani galaaska marka wax lagu shubo buuxsamo yani way ka daataan haddii aan laga dhaafin marka akhrisuna waa saasoo kale qofku marka intay wax akhriso marka dambe wixii dibadda u soo baxay yani aqoonti iyo wixii ay kasbatay ay dibadda u soo saaraysaa marka run ahaantii yani akhrisku faa'iido uu leeyahay wada garanaynaho yani marka haddii diin la yiraahdo iyo haddii cimaarta maadi la yiraahdaba muhiimadda uu leeyahay waan wada ognahay waxa la yiraahdaa yani qof kaad horeysa oo amba aqoon kaaga horeysa amba dhaqaale kaaga horeysa amba si un kaaga horeysa waxaad ku dhaafi kartaa waa akhriska kaliya inaad wax akhriska ku dhaafi kartaa marka run ahaantii yani qofkii tusaalo kale qoftii dhakhtar soo barta oo yani hal qayb un soo barta amba hal jaanib haddii uusan ku darin akhris iyo yani مراجعين أو سنكون درين يعني غيب تصنبو يغنى إيه يعني ما أنت كلام يغنوا